marka ugu horeysa eegaano salaan qaali ah kaga timid naf u hamuun qabtay noloshaada ku faraxsanayd aragtidaada salaan kadib waxaan halkan ku soo koobayaa qiso xanuun badan aniga igu dhacday qisooyinku way kala xanuun badan yihiin sida aad ogsoon tahay haddaad weydo qof aad jeceshahay noloshu waxay kuu noqonaysaa mid ciriiri iyo jahwareer waxaan ku bilaabayaa sida tan magacaygu waa Xuseen waxay ahayd maalin subax ah taariikhduna ay ahayd 10kii bishii sagaalaad 2013 maalin axad ah waxaan ku sugnaa magaalada Hargeysa waxaan safar u ahaa dhinaca iyo bariga nasiib wanaag zaytuun ayaan waxaan ku bartay gaari dhexdiisa weliba labadeena oo safar u wada socda xagga iyo bariga barasho kadib waxay ii ahayd farxad waxay ii ahayd maalin aad u qurux badan waayo waxaan bartay gabar midii alla u siiyey ixtiraam waxay soo jiitay quruxdeeda dabeecaddeeda wanaagsan waxay ahayd qof alla u dhameeyey dhinac walba barashadeennii waxay ahayd mid ku dhisan walaaltinimo iyo ixtiraam barasho iyo kaftan badan kadib waxaan kala qaadanay lambaradii qof walbana waxa uu tegay magaaladii uu socday alxamdulillaah waxaan wada sheekaysanaaba xiriirkii waxa uu isku beddelay jacayl waxaan ka helay xishoodkeeda iyo ixtiraamkeeda waa ay soo jiidatay ayaduna sidoo kale waxay ii ahayd maalin farxad leh sidoo kale waxa aan nasiib u helay in aan helo qof ixtiraamaya ilana jecel wanaag walba la soco qaybta xigta